codadka dilayaashii Jamaal Khashoggi iyo wada sheekaysigoodii oo la soo bandhigay. dambi baarayaasha qaramada midoobay ee ciddii ka dambeysay dilkii wariye Jamaal Khashoggi ayaa soo bandhigay xaqiiqooyin iyo cadeymo muujinaya in Amiir Mohammed bin Salman dhaxasugaha boqortooyada Sacuudiga uu amray dilkii Khashoggi. sidee bay ku bilaabatay sheekadii dilkii Jamaal Khashoggi? طبقة labaad ee qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa isugu yimid rag aad u kala duwan dhinac kasta. mid wuxuu ahaa dhakhtar ku takhasusay raadreebka falalka dambiyada culus, mid wuxuu ahaa sirdoon, kuwa kalena ciidamada ammaanka. dhammaantood waxay ka howlgeli jireen xafiiska Amiir Mohammed bin Salman. waxay ka sheekaysteen goorta la filayo inuu yimaado ninka la sugayo, sida ay u dili doonaan iyo sida ay jirkiisa qunsuliyadda uga saari doonaan, ayaga oo walwal ka qaba sida ninkaas intaa leeg asagoo meyd ah meesha looga saari karo. baa waxaa soo booday doctorka asagoo yidhi dhib ma leh, meel kasta oo lafuhu iska galaan waa wada carju, marka waa la kala goynayaa, dhibi ma jirto. markaas bay yara dabceen oo waxaad moodaa inay sharqan la'aanta la dareemay ay kalsooni dheeraada raggii siisay. haddana doctorka oo hadalka ku soo noqdayba wuxuu yidhi waxaan wadanaa baco oo intii aan jirkiisa cadcad u jarjarno baan cad kasta bac gooniya ku duubaynaa. ninka loo tashanayo waa wariyihii Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi oo kadib markii uu soo galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul aan dib dambe loo arag. xagaag saas oo xal yahay arbacadii la soo dhaafay 8 bilood dilkii Khashoggi ka bacdi waxaa soo baxay warbixin qaramada midoobay oo faahfaahsan oo u kurgashay habkii iyo awaamirtii suurtagelisay in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhex dilo oo lagu dhex jarjaro qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul. warbixintan ayaa si aan leexleexad lahayn eedda dilkii wariyaha dusha uga saartay Amiir Mohammed bin Salman, ayadoo warbixinta lagu soo gabagabeeyay inay hayaan cadeymo aan shaki ku jirin oo muujinaya laga maarmaanna ka dhigay in Amiir Mohammed bin Salman lala beegsado cunaqabatayn maaliyadeed iyo weliba baaritaano saa'ida. Khashoggi sidee loo dilay? aan mar kale ku noqono daawadayaal iyo dhegaystayaal sidii dilayaashu u maleegeen dilkii Jamaal Khashoggi. warbixinta oo soo xiganaysa codadka ay duubeen sirdoonka Turkiga ayagoo qalab qarsoon adeegsanaya darbi ha ku jiro ama meel kale ha saarnaadee, waxa ay ku bilaamaysaa codadka sarkaal Maahir Mutrib oo ah sarkaal sirdoon isagoo leh xayawaankii aan gowrici lahayn hadduu qunsuliyadda soo galay. dhowr daqiiqo ka bacdi Khashoggi wuxuu soo galay xafiiska qunsuliyadda si uu u helo waraaqa u sahlaya inuu si sharci ah u mehersado xaaskiisa cusub. Khashoggi waxaa loo kiciyay dhanka xafiiska qunsuliyadda guud, waxaana isla markiiba loo sheegay in uu Sacuudi Carabiya ku laabanayo. Khashoggi oo aan innaba hadalkaasi iyo mid u dhow filayn baa wuxuu yidhi dad baa bannaanka igu sugaya, darawal baa i sugaya. sarkaal meesha fadhiyay baa hadalka u soo gaabiyey asagoo yidhi hadal tirada intaa naga dayso, wiilkaaga fariin u dir. wiilkee? maxaanse u sheegaa wiilkayga? buu yidhi Khashoggi. fariin baad qoraysaa, aan hadeer baa bilowno oo aan ku tuso, buu sarkaalkii yidhi asagoo ku sii daray qor Jamaal degdeg u qor. laakiin daqiiqado gudahood sarkaalkii wuu khalkhalay, wuxuuna la soo baxay cirbad. Khashoggi oo cirbadda arkaya baa yidhi oo hadda ma isumaynaysaa? sarkaalkii oo Khashoggi u jawaabaya waxa uu yidhi maya, waan ku suuxinayaa. intaas markii la is yidhi waa la soo booday oo Jamaal ka bacdina waxaa duubista laga maqlayay buuq iyo dhaqdhaqaaq saa'id ah iyo neefsasho tiro badan. wax yar ka bacdina waxaa bilowday sharqanta miishaar wax jaraysa. wixii intaasi ka dambeeyay weli waa la laayahay war sugan, waxaase la isku raacay in sharqantaasi qunsuliyadda dhexdeeda ay ka turjumayso jarjarka xubnaha Jamaal Khashoggi oo cadcad loo jarjaray. ilaa hadda meydkiisa
waa la laayahay. haddaba maxaa lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay ka soo baxday? warbixintu waa 101 bog waxaana diyaariyey u qaabilsanaha goonida ee qaramada midoobay dhanka dilalka sharci darrada ah, waxaana mas'uul ka ah gabadha magaceedu yahay Agnes Coleman. warbixinta ayaa lagu sheegay in dilkii Khashoggi uu ahaa mid argagax leh oo ay dowladda fulisay, lagu fuliyey amro dowlo, sidaa darteedna u baahan in la dabagalo laguna sameeyo dambi baaris dheeraad ah. warbixinta ayaa lagu dalbaday in degdeg cunaqabateyn iyo xayiraad loo saaro Amiir Mohammed bin Salman xataa ka hor inta aan maxkamad la tigsan, si dembiga loo xaqiijiyo ama loo caddeeyo inuusan dembiga ku lug lahayn. sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay inay tahay wax aan caqliga geli karin in koox ka kooban 15 sarkaal loo soo diro qunsuliyad dowladeed ee dal kale ayadoo aan dowladdu la socon dhaqdhaqaaqooda, awaamiirna aan ka haysan madaxda dowladda ee ku sugan Riyadh. dhanka dowladda Turkiga, madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in warbixinta qaramada midoobay ay xaqiijisay in boqortooyada Sacuudigu ay ka dambeeyeen dilkii Jamal Khashoggi, isagoo ku sii daray in Sacuudiga laga rabo in uu meel ku sheego meydkii Khashoggi. warbixintu waxay xaqiijisay in Sacuudigu ogaa uuna leeyahay dambiga dilkii Khashoggi, ayuu yiri Erdogan, asagoo sii wata hadalkiisa wuxuu ku daray waa lagala xisaabtamayaa waana ballan in ay ka shalaayaan. maxamed lakimaan, warbaahinta Daljir, Garowe.